xaflad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcaddii 17aad ee ka qalin jabisa dugsiyada Nuuraddiin ee magaalada Burco ayaa maanta ka qabsoontay Hotel Cafe ee magaalada Burco waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka ka waxbarashada asxaabta siyaasadda abwaano mas'uuliyiinta shirkadda Samtel waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardaydii ka qalin jabinaysay dugsiyada Nuuraddiin waxaana ugu horreyntiiba faahfaahin ka bixiyay dugsiyada Nuuraddiin iyo tirada ardaydii ka maanta ka qalin jabinaysay maamulaha iyo maamulka ku-xigeenka dugsiyada Nuuraddiin Cabdiladiif Sheekh Cismaan iyo Yaasiin Xaaji Cawil Digfar waxa maanta halkan aan ugu talagalnay inaan ku sagootino dufcaddii 17aad oo ka kooban sidii horeba la idin xasuusiyay 4 fakal ama 4 department oo kala duwan oo iskuulka ah waa waaxda luqadda Ingiriisiga oo ay baxayaan arday ku hadlaysa magaca luqadda Ingiriisiga wax qaybta ka kooban multimedia ama journalismka iyadoo wada socota waaxda caafimaadka iyo waaxda ICT-ga ardaydan sagootiyeyno waa 290 arday 290 ka arday waxay u kala qaybsan yihiin 4 waaxood ee kala duwan runtii waxaa noo sharafa oo noo farxada inaan maanta 300 oo arday in ku dhow aan xafladda qalinjabinta Nuuraddiin School dafcaddii 17aad aan u qabanno waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ardayda ka qalinjabisay dafcadaha kala duwan ee dugsiga Nuuraddiin waxa iyaguna geestooda hadalka iska daba maray mas'uuliyiin wariyaal arday waalidiin iyagoo dhammaantoodba halkaasi ka soo jeediyay hadallo ku tacalluqa hambalyo dardaaran iyo duco iskuulkan waa iskuul qaali ah waa iskuul gobolka wax badan ka bedelay waa iskuul qaybo badan isugu kooban yihiin ama saxaafada ama luqadaha ahaatee gidi ay ku wada jiraan waa iskuul shiday gobolka daruurada aqooneed cilmiga nuuriyo kabenaafada qalbiga waa jahliga lagu nagaadaaye dadka waxa uu nasiib badan qofkii Nuuraddiin tagay naadiga aqoonta tagdheer lagaga noolaaday waa Nuuraddiin aad iyo aad ugu hambalyeynaya oo aan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aan hambalyo ballaaran uga soo jeedinayaa ardaydan ka qalin jabisay dugsi odhan maayo waa dugsiyada Nuuraddiin Burco gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardaydii maanta ka qalin jabinaysay dugsiyada Nuuraddiin ee magaalada Burco barwaaqo aadan Maxmed TV-ga caalamiga Universal magaalada Burco